joojiyo aniga taas inta taagana awowga awowgii muu ka guursadaniyo waa maya soo maaha imika soo dhaqan mar hore halaabay maaha inaad artaydii aan ku taagnaado aniga aan wax barto aniga aan isdhiso aniga ninkaygan hantida haysta taraaglaha ah dumarkaygan dahablayaasha qurbaha yimid raggan kale ku ordayaan lacagta iyo dadkan kale naga taaya imika waka barkad butul waa maanta waa nin meel sare jooga maanta wataa gabadh ciidan kale u guursaday no inaad yartii u baahnayd inuu ku labeeyo oo sabab oo hoosta joogta maxay maanta igu raacda shil ku raaci weyda hantida xamdiyay cunsurinimada joogta adiga laftigaaga cunsurinimada baygu rasa cunsurinimada wadaa xamdi waan bartay inaad inaad horta aad baan idiin salaamay xamdiye aad baan kuu salaamayaa wuxuu yidhi ninkii naagta furay uurka kaama aha buu yidhi uurka kaama aha marka imanka sheekadii baad wadaaye uurka kaama aha miyaa mise waa kaa dhaba adiga laftigaaga cunsurinimo wada midda labaad haddaad xitaa tidhaahdo xamdiye igar aan kuu dhameeyo ilaahay igu ogyahay ma guursadan inaan ma dhibaan ahayn xitaa gawayaha kale aan ma guursan cunsuriyad baan ahayn marka dadka adigii baaba dee sii baraya cunsurinimadii aan habkataan baaya lacagtayda la rabaa hablaha inaad horta xamdiye muudi yara galinta babayo waxaan arkay dhageyso waan ku daynaya waxaan arkay allah hablo qurqurux badan baa tiir allah maasha allah gabayo luuqa lagu soo galaya igu xidha hablo markaan dhaho okay waa facebooka waxaan ku siinayaa mid lambarkeed afrika joogta ma iga da afrika mid meelaha joogta qurbaha muxuu rabaa inuu isku laabo xoolaheeda cuno tan afrika joogta soo markaa ma ku afrika joogaa guursanaya tan qurbaha waa lacag raadis waa kuwa qurbaha joogaa guursanaya markaa mise kuwa eeg aniga haddii la isguursanayo dhaqankeena meeshu ka yimid amba anigu aan joogno amba la rabo dadka maskaxda in wax looga sheego maaha dadka qurbaha jooga cunsurinimada arkay ee baska iyagoo arkay ka dhaqaaqaya ee lagu cunsuriyeynayo shooshiyaalada iyo meelahay ka shaqeeyaan dadka la rabo in wax laga dhaadhiciyo waa dadka afrika jooga ma fahanti dadka afrika jooga maanta haddaan inantii intu doonan xaraga loo siinaynin walaal waa si sharaf loo siinayno sida inanta hablaha kale xoolaha looga bixinayno lasoo fadhiisinayno laysku soo buraanburaynin dabaya been yaa laysku sheegin walaalkii minka guursanaya khalaas nin kale ma rabo haddaba xamdiyey aniguna mid aan kuu sheego imuurka iyo ragal horta soomaali marka xaqiiqada laga hadla inaadan cid idiin roonayd ma jirto ama madhibaan ha noqdaan ama gabooye ha noqdaan ama tumaal ha noqdaan soomaali marka xaqiiqada laga hadla ama hawiye ha noqdaan ama daarood ha noqdaan ama isaaq ha noqdaan cidna idinmay roonayn idinka laftigiinu mawlido yaraan dhameeya isugu walaalo idinka laftigiinu haddaad kulligiin isku wada duub idinka laftigiinu dadkii dee lagu caayi jiray midgaha ee ilaa hadda markay dadku iscaayaan midgayo hows yidhaahdaan marka xaqiiqada laga hadlo idinka laftigiinu markaad qurbaha timaadeen baad sheegateen hadda ka hor waxaa jirtay anigoo dhalinyaro hargeysa jooga inaan madhibaanaba isoo raacay habeen meel iga soo raacay wuxuu igu yidhi waxaan ahay reer gadiid qolada laydhaa markaasaan kuriyaad ka taho reer jaamica gadiid baan ahay buu yidhi weligay maan maqale maadiya aabbahabaabaan ku yidhi way jiraan buu yidhi waxay ii xigtay qurbaha markaan imid anigoo weligay maqli jiray madhibaan iyo kulli isku wadagee tumaal kulligood dee adigu reerkii la caayi jiray oo dhan la yasi jiray anigoo hargeysa markaan ka imid aqaana inaanu weligay qof midgaan ama tumaal ama madhibaani aanu odhanin reer hebel baan ahay uu dadyooga uu la dego uu sheegto markay qurbaha yimaadeen waxa ii xigtay inaan ba habeen maalin aan dukaan iskugu soo galnay rayd buu soo siiyey wadankana waan ku cusbaa gaarimaan wadanin inankii markaan dhexda marayno ayuu wuxuu igu inaad armays baran karnaa qabiil bayna laga raacay qolamaa teebiiro qoladaydan u sheegay adiguna yaa tahay baan ku ayaan ku wuxuu yiri waxaan ahay nin madhibaan oo caynkaas oo sidaas yacni shoog bay igu noqotay runta haddaan kuu sheego waxay shoog igu noqotay waxaan aqaanay iyaga oo madhibaan iyo cid kastaba de intii la caayi jiray Soomaalidu ay yasi jireen inkastoo anigu discrimination-ka nacabahay haddana ay sheegtaan qabiiladooda qabiilo kale la degaan ay sheegan jireen shoog bay igu noqotay inankii waxaan ku yiri maadiga madhibaan ahaa waan aamusay deetan markaasaan ku naadar maxaas baad leedahay waxaad is leedahay gabadhaada iyo reerkaaga soo ogaan doontaa marka idinka laftigiinu walaalo lacagtaad hesheenaha freedom-kan iyo discrimination-kan iyo qabiiladan la diiday idinka laftigiinu xamdiyey idinka laftigiinu inaad madhibaanka iyo midgihii imanka la caayi jira la yasi jiray waad ku faantaan taasina wallaahi I'm proud aad baan ugu faraxsanahay waayahay ii istaag hadal fiican oo bulshada dhan u wanaagsan baad ka dhawaajisa horta eeg waxaad ka soo qaadaa naftaada hadday jirtaba
واصلة hota تهاي anigu shakhsi baan ahoo reer baan ka dhasho reer isqaraya maaha saqiirka yar baana yaqaana anagu wixii dee burciyo hawdkaana la dega oo reer mira garweynaana la dhahay dad caan ahoo dhulbaahantaha isla degaan iyo dadka isla degaan iyo habar jecla isla degaanba yaqaanaanu naha ma fahmaysaa aabahayna nin taariikh somalilan kulaha buu ahaa ilaa 83 sacuudiga isagoo ka yimid saaraha markay soo marana dadkan la soo tahriibay way ogyihiinoo anaa kuu qirayo 3 ninoo ila socday 3daba inta isqariyeen bay hablaha kale isku nabayeen ee biyaha siinayeen alaabta u qaadayeen anoo keligiyo reerkayga sheeganaya shafka qaraacanayana soomaali dhexdeeda sharaf baan ka lahaa gaar baa lay ilaalinayay inanta keliya reerka keliya nagala socotaa lalaha ma fahmaysaa telefoonka inoo qabo gabadha keliya reerka nagala socotaa lalahaa waxaa ila soo galay malta hadda faamil maraykan u baxay oo sheeganayay majeerteen caruurtana dhulbahanta ka dhigay oo madhibaan ahaa ayaa jira markan xabsiga soo wada marnay waana sheeganayay markan banaanka usoo baxayna farta laygu fiiqay haddaba taasoo kale waxay u dhigantaa shalay inigoo ay nii naqaanay inaad isaaq tihiin amba majeerteen amba dharbahante amba hawiye amba cid kastaba ha noqoto ayaa maanta markaad qurbihii timaadeen nasibkiini ka tagteen saa sharci u heshaana waxaad tiraheen anigu gabooyaanu nahay waana la yasay saad baasaboor iyo lacag noogu qaadataan shalayna waad naga faanayseen oo waad nacaayayseen maanta qurbihii markaad timaadeenna annagaad buugaagna hoos dhigteen oo noo qoro walaal aftiriska hooyo islaantii jaarka wacaafadii saaxiibada islaantii hablaha gudi jirtay ha iiga soo qor qabiilka sharcigii interviewgan ku marayaabaa tiri saad adigu shalay iiga faanaysay maantana iigu faanaysid sharciga iigu qaadanaysid ayda iigu eeganaysid ayaan aniguna saas weeyaan marka almuhiim maskaxdan dhalinyartan maskaxda laga dilay ee iskuulka hadduu wax baranayo midgaan yahow la leeyahay hadduu sii soo jeesto inaa la dhahayo markuu sii jeestona waa midgaankii la dhahayay waa caruur maskaxda laga dilay waxa isqarinaya ma fahmaysaa dad calashan dadka gabooye laguma gumaysanin xabad laguma gumaysanin dad meel lagu soxdo la go-aamiye ma aha dad soomaali oo dhan la dego milixo meesha degaanba shaqaysto xirfadooda maalaya weyn dad waxaadana maaha dad saqaamo dhacdhacana maaha waa dad xirfadooda maalaya amba kab ha soo turaan amba tin ha soo jaraan amba bir ha soo qaraacaan amba meelaha ordaan laakiin waa dad maskaxiyan loo dilay ma fahmaysaa nasab ma tihid sidan ma tihid lagu yiri marka almuhiim waxaa tusaale ahaan kugu filan adoo shalay iga faanayo iga ordaya qabiilkayga yasayay ayaa maanta qurbihii igu sheeganaya oo shalay igu qaadanaya laandheernimadaadii shafka inta ka dhaqaaqday adiga boon maanta idhaah oo qurbaha midgaan idhaah ila jooga na maltadanan joogay ka dhacday isu golaala waan kuba kaaga baxaya maltadan bay ka dhacda soomaali communitygan ku jira markaasay isku yimaadeen maalin la yiri hal shiro bashirkaba naloo qabtay waan tagnaa dadkiiba cabanaya telefoonka mid laga qaataa aniga waa la cusriyay baska iga tagay wadankan malta waa tisraad xun aniga xasidan bayal xabsigan ka buuxna waa maxaa la dhahay shaqada waa lagu cusriya salaada noloma ogo dadkii Soomaaliyeed ba mid wax u ka cawda telefoonka markuu isoo gaadho loo dhiibaan kooro aniga waan nagu faraxsanaa ka waranka kula dhiigga ah ee kula dhaqanka ah ee kula Soomaaliga ee kula Afrikaanka ee kula dalka ah ee hooyada iyo hooyadii meel ku wada dhasheen ee saaxiiba aan wada hayn aad intaas oo sano cunsuriyeynayeen cunsurnimada ila dhadhamiyo Yurub hadda timaadeen marka waxa loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed waxa maanta 30 sano bila dawladina wada dhigay ee Soomaaliland itraafka u laadahay ee Soomaaliya u burbursan tahay ee hawiyad daarood iskugu eriyeen xilka isku dhiibayaan walaal waa dulmigaad ka gasheen walaalihiin waad cusbiyeysan meel iskugu geyseen ilaahay toobad weydiista taasayna لا إيمان قال قصة قاعدة هلك الدنيا حمدي su'aal baan ka dhigay arrinta maxamed sheegtay in la isku dhiibo gabooye bal dameer labood baa isaga weydiin doonaa inuu isku dhiibo gabooye sanadadan ugu dambeeyay gabooye la iskuma dhiibo oo sharciga lagu helo sidaan aaminsanahay laakiin dhibaatada qofku sheeganayo ayaa badanaa lagu helaa iyo dhibka uu sheeganayo mushkiladda uu sheeganayo ayaa lagu helaa bal dameer labood ka soo bax muudka gabooye isku dhiibtay xamdi durxul badan bay samaysay tumaraac badan bay samaysay may isku dhiibtay horta mawliidow in adeer xamdi su'aasha inanta runta ogamay jawaabin meel kale ay martay laakiin waxaan kuu sheegaya wallahi anigu iskumaan dhiibin gabooye wallahi bay iga tahay laakiin waxa weeye in adeer dadkuna iskumay wada dhiibin dadka laftoodana in dee dhaqada laga wada saaro eedda maaha laakiin xamdiya in adeer su'aasha si toosa oga jawaabo waxa marka halkaa joogtaan dhibta idin haysatee isla qarinaysaan marka halkan timaadaana qabiilkiina u sheeganaysaan bal taa lafteeda bal ku yara noqo si wanaagsan oo caddeeyo isku dhiibitaankani waxaan wax weyn maaha hadalkayga laba sub kugu dhacay aniga xamdi ahaan baan ku yiri iyo faamilkayga iyo intaan aqaano iyo intaan la soo koray isma qariyaan waa la ii yaqaanaa baan kur meel ay reerku iska qarinayaan ma jirto laakiin waxaan ku arkay qurbaha
dad badan oo markan qurbaha soo galaya markan jidka soo socday isqarinaya markan su'aalaha weydiiyana qaarkood ay ku dhaheen saxaraa kusoo dhaafin qaarkood ay ku dhaheen doontii ma bilaash kusoo furay qaarkood aan arkay markan miidiyaha imid aan ka soo saaray kuraasida hoostooda iyagoo qabiilo kala sheeganaya saan u lahaa ay am midgaan waxay ka ordayaan kelmadda midgaan iyo how midgaan ku dhalay haddaad tiraahid ay am midgaan anaa midgaan ah maxaad iga qaadaysaa maxaad kaloo idii haysaa adigaa taahil ahaa oo antimaa xiiran oo nin injirtu ku gashan anu kaa xiiraya adoo walaalkay ahaabaad adigu waxba ma qabsan kartid neefkaad baktiisan jirta inta mid ku tuman kurho walaal bisinka u qabo birayso ha inta neefka harigiisa ku qabtan kaba kaaga tolan kur walaal kabtan ii xidho oo dhacdiyo kumada dhagaxiyo kumudin adigu farsamadayda adigu caayasaaye adigu maxaad la timid isii maxaad haysaa waxaan dil iyo dhac iyo kufsi iyo nolol ka dhaciin iyo daba la iska dubaya waxaan hayn ma haysaan soomaaliyeed taas ayaan anigu ugu jawaabay marka inaadeer raggan isqarinaya ama dumarkan isqarinaya waa dad maskaxda laga soo dilay oo magacan midgaan ka ordaya war magaca midgaan waa midigmaal waa dad xoogooda ku shaqaysanaya waa dadan waxna dhicin waxna kufsan waxna dhibaatin xoogooda midgaan ereyga ah anigu lababa waan u qaataa marna waa dad midigmaal ah marna waa cay oo annagaaba isku cayna maanta annagaaba isku cayna reerkii muuse dhari wuxuu leeyahay ma dhibaan oo midgaan iyo midgaan ku dhalay ana muusaan ana ma dhibaan aan xalay muuse oo midgaan iyo midgaan ku dhalay annagaaba isku cayno mega isku qaadana waa kelmad caayo international adduunka dhan baa isku caaya ma fahanti waa gartay marka soo dhowr jeer reerkaaga uga baxday ayaa lagu soo weydiinaya maxaa adigu mar walba aad reerkaaga uga baxdaa waxaan reerkayga uga baxay taa mawlido anaa ku weydiinaya bal kaaga jawaabaya si qurux badan tiktok waxaa lagu joogaa waa qabiil tiktok maaha facebook ama maaha meelo kale tiktok waxaa lagu joogaa waa qabiil nin waliba qabiilkiisa iyo reerkiisa xiniyihiisu fulaa markan tiktok soo galay waqti horey ahayd 2019 bay ahayd laakiin tiktok markay giimanku bilaabmeenaan imid club house anoo ka imid iska ordiyaan kusoo dhexdhaca reerka daarood baan in badan col la ahaayo de weligeen iyagu islamaba degne waxaan u colaadinaya uun kow halkaa somalilaanta la dhaha way xasuuqaan iyo hawiyahanoo dhinac ka ximinayan kala ximinay markan miidiyihii imidna intaanan iman meeshana youtube baan afiska soo weydiista reerka aan kuri afiyo garab iga maqan baa ahaydan imaada reyaalo daarooda afiya anasad baa tihiin kibir baan inagu haystay marka waa dagaal annagii walaalkay daahirna dhex maray buu ahaa qasab kusoo biiro tiim ha biqlaysa noqo oo aan ku amro yay amri maysid ma fahmaysaa markan tiktok imidna waxay noqotay waxay leeyihiin walaalaynu hawiyeynuna markan gabadh la ciyaara habar gedira babababa anaa lay rusheynaya gawiil abgaala la ciyaaraya babababa anaa lay rusheynaya sankiyo filterkii lay gelinaya isaaqii baa la ciyaara isaaqii marka la ciyaara ilaa surra iisoo ka haysteen hababababa waa fakere war maxay dadkan ku eryanayaan kuwii aad yiri waad ka dhalatayna waa kuwan way ku rusheynayaan kuwii aad meel kala timid aad la soo korto somaliland la ahaydna waa kuwanoo way ku rusheynayaan bal wataase maxaa khaldan kabacdi waxaan sameeyey markaan arkay inay labadii dhinac iska kay raaceen oo irir soomaali waxa la dhahaa markaa lasoo saaray dee wuu jireede laakiin lasoo cusboonaysiiyey oo de irir soomaali la isku dhaho oo cadaan baan la ciyaaray cadaan soomaali way ka tegi cadaan baan soo qabsasa cadaankii ii yimaadeen igu durusheeyaan markaasaa waxaan iri war daaroodu war imaade rayaal war gun baa eryanaysa kaalay iga fajiya shurunshuur baa eryanaysa kaalay iga fajiya qurbahan marka la joogo nin waliba isagoo wadankiisa ka yimid la yaqaano aftiris leeyahay ayuu qabiil kale iska dhiibaa nin kasta qabiil kale iska dhiibaa qabiil kale qabiiladaydu isku dhiibaa kow haddana wuxuu sameeyaa markuu haddana isdhiibo wuxuu sheegtaa wadan kale aan wadankiisa ahayn matalan somaliland baa ka mida muqdisho iyo calanka soomaaliya la sheeganaya hadda sharciyo baasaboor baa lagu qatay reerkaas daarooda tiktok ininkaa xoreystee baasaboor siiya dee bahal baasaboor britisha ayaa daraawiishti dhac igu siisa dee naaglaan dheeroo daraawiishoo sulaysanaa kasoo jeeda hadda eeg ayaa noqda markaasaa waxaan ku yiri kii isaaqan soo qabtaba baf kii hawiyaan soo qabtaba baf maxaa kugu dhacay daaqadaha ay baabada inta lay furaa leersanaya hawaasa ii marisay hawo haddana hawiyihii markaan ku noqday naag ficil badan baan ahay ee doorashadii soomaaliya ka dhacaysay ayuu dhiig intuu qaaday baan xaasha shiikh man taageera maxaa kuu geystay dee halkii reerkii waa istatistinkii waa layga qato waa layga saara marka niyow waxa weeye tiktok xifaaltankaasuu ahaa tiktok xifaaltankaasuu ahaa marka isaaq iyo hawiye iskugu kay tageen
ay xusuriyeeyeen daahir cali sawleef soo galay hablihiisa u tagaan ay soo caayaan committee hal mar waxa laga dhigay xamdi midgaaney daaroodkii hal mar markan u galay dhaheen waan ku cafinay soo dhawaaba waxa ka batay shaashadii xamdi british si toos ah bandaarood soo dhex istaagay marka taasay ahayd badbaadi ahayd laga badbaadinayo isaaqii hawiye suuqay tiri ama dir حمزة استاذن كويدين hal mar aan hadla اوكي هذا الولا ها horta dhanka qabiilaadka in ma dhibaan la sheegto maxay hato qabiilaadka kale to gabooyi in la sheegto dadka cadcadka in la sheegto aniga hore xiriq xuutiga ka soo dhoofay dad badan oo caan oo hadda qaar fanaaniin ay yihiin qaar ay yihiin dad caan oo la yaqaano aan isla soo dhoofno ma fahanti maxay sheegtay niyahow daarood iyo ii sheeg maxay ahayd hawiyahan kaleeto qof qabiilkiisa kusoo dhoofa ma jiro